haa 7 bilood ka hor barnaamijkan ay shaaciyeen magaratay sanad guuradooda markay u dabaaldegayeen aan waa daawaday. waxaa weeye saa ujeedaan barnaamijkan waa soo daawan karna intaa keliya ku horta youtube-ka. barnaamijkan shaaciyeen marka oo dee barnaamij caalami ah. barnaamijku marka wuxuu leeyahay waa full stack weeye. sidoo kale wuxuu leeyahay shahaado leeyahay, shahaadadiisu waa bilaash weeye. marka horta barnaamijku saasuu ku yimid hadaa qofkii rabo taariikh inuu helo. halkaas aa ujeedaan oo kale wuxuu leeyahay major certification updates waa dhaceen oo barnaamijkan waa wataa magarata. marka horta barnaamijkaas ku yimid. barnaamijku marka hadaa qoraalka akhrisaan wuxuu leeyahay waa comprehensive pathway ku leeyahay magarata. maxay bixinaysaa comprehensive pathway? inaa jid duuduub ah. comprehensive waa shay weyn oo aad ku noqosid certified full stack developer. technology-ka dhan bay waxaa weye dusha ka mareysaa lagu dhiso modern web application. waxaad ku baranaysaa coding, waxaad qaadanaysaa lessons, code exercise, real world project aad dhisaysid, front endiga iyo back endiga xariif ku noqonaysaa, html wax ku shaqeynaysaa html sida javascript adoo dhisaya, responsive user interface. shay waxaa weeye adeegsaduu shay user interface waxaa layihahdaa qofka adeegsadaa wax u muuqda. anaga hadda halkan waxaa noo muuqda oo kale ujeedaan user oo kale menu button ah, button qoraal logo saasaa laga wadaa user interface. sidoo kale waxaa baranaysaa qeybtii typescript baa baranaysaa oo javascript luqad lagu korsameeya ah. waxaa baranaysaa gidkii, version control, node.js, python waxaasa baranaysaa magarta. marka muxuu ku leeyahay certificationka waxaa qaadanaysaa markaad koorsada dhameysid magarata. certificationkan waxay leedahay final exam waana bilaash. haddaa u baahan tahay inaad contribution sameysid oo sadaqa aa bixisid, charity u yaqaanaan nimankan sadaqada maadaama ay yihiin non profit organization, maadaama ay yihiin charity ku socdaa magarata. waa waxaa loogu deeqaa, lacagaa loogu deeqaa. marka horta barnaamijku waa kaa. barnaamijku markaas features html-ki wataa, css-kii, javascript-gii, react wataa iyo python oo iska foundationska ah, iyo databaseski iyo backendigi node.js ujeedi node.js-ki, express, node sql. hadhowna maxaa jira oo kale waxaa jira final project aad sameynaysid oo full stack ah. kadibna shahaadada qaadanaysaa, imtixaan baa gelaysaa. shahaadada marka caalamiya, shahaadada haddaa qaadatid oo waxa meesha ku xusan oo dhan haddaa soo sameyso shahaadada qaadatid, kaliya waxaa kuu dhiman inaad cid la shaqeysid oo experience aa qaadatid, khibrad inaa qaadid. wixii waa taqaana laakiin khibrad inaa qaadataa kuu dhiman, wax kale kuma dhiman, aqoonta soo baratay. qaabkay wax u barayaana waxaa la yihahdaa the hard way. if you want to learn something professionally you have to learn it in a hard way. manaa qaabka adag haddaa wax u baratid way kuu fududaanaysaa. markay qaab adag wax u barayaan oo arki doonaa insha allah. qaabka wax u barayaan oo kale html-ka tag. iyagu marka saddex wuxuu ka kooban yahay qaab habbarashada saddex wax. horta kow wax la yihahdaa lectures baa la yihahdaa oo saamirka ugu dhufatid oo kale. waa oran ka dhaa waa hordhac oo kale magarata. hordhac oo kale magarata waxay hordhacsa muuqaalo saan oo kale baa jira la lectures. qoraalka marka halkaana ka arka dhaayo kale waxa la sharaxayo dhan halkaana ka arkaysa. buug iyo qalin ku qaadan ka dhaa. su-aalay jawaabay leedahay marka cashar walba su-aalay jawaab uu leeyahay soo miri garan. marka horta lectures baa jira wax ah oo noocaana. kadib maxaa jira waxaa jira haddana lectures baa jira. lecturesku marka wax kale maaha, waa shaygii lagu sharaxayo. adsaada ka saada dhufatid oo kale waa lagu sharaxaya. salaana kale attribute waa maxay? attribute waa maxaa lagu sharaxaya saa ujeedin oo kale. marka xoogaa haddii ingiliishka degdeg kugu noqdo fursad kala haysataa, qoraalkan akhrinaysaa. attribute waa maxay? attribute waxaa weeye waa additional information about the element. waa faahfaahin dheeraada kaasoo ku saabsan elementiga. elementiga marka waa kan a buu noqon karaa. eega marka maxaa weeye kana waxaa la yihahdaa attribute. attribute value waxaa la yihahdaa attribute name, kana waa attribute value. marka halkaana ka arkaysaa tusaalahaan oo kale haddii ingiliishku kale kugu adkaado qoraalkii waa haysataa. umaleymayo qof maanta ingiliish ku adag yahay oo dee sida
reer baadiyaha uu ku yahay oo kale qofka aan weliga English baran ka qof uu ku yahay uma leeyahay inuu jaamacad dhigto marka Englishkaas akhrisanaysaa haddii kugu adkaanta koobi soo tiraadid taasaa koobi soo tiraadid oo AI gelisid sanadoo kale AI tag gelisid waxa oran kadhaa please convert this text into simple English, simple African English, and add more examples and explain to me like a 5 years old ama 10 years old cunug 10 jir oo kale saas oran kadhaa tips tricks ka warki doona insha Allah qofkii fursad u yeesho waxa weeye dadaala waxyaalo badan oo faa'iideyn doona marka horta casharada muuqaala lagu sharxay halkaan ku arkaysa oo taas saddexda English ku adkaa halkaan akhrisanaysa buugga qalin ku qoran kadhaa taasi waxay u baahan tahay in xoogaa joogteyn iyo dadaal adkaysi u baahan tahay garta waa lectureska marka laga soo tago waxaa jira waxaa ku xiga workshop wax kale ma aha waa practice way soolaan oo kale practice baa leeyahay workshop oo maxay ah in macallinkii code-ka uu qorayay iyo code-ka loo qoramayaan laakiin waxa ku tusinayaan mataqaana workshops waxa weeye waa exercise-kii way magarata soolaan kale practice-kii macallinka uu sawirada idin kula sameeyay camal way ama YouTube-ka practice-ka daawanaysi way marka markaas aad dhufatid oo kale waxaa lagu tusayaa horta waxa dhisaysid kow wuxuu ku leeyahay waxaana dhisaysaa uu ku leeyahay final project waxaana dhisaysaa finalka waxaa dhisaysaa okay waa good way okay marka muxuu ku leeyahay marka muxuu ku leeyahay okay muxuu ku leeyahay step koowaad muxuu ku leeyahay in you will continue working with basic HTML elements like heading paragraphs muxuu ku leeyahay maxaa ku bilowdaa waxaa ku bilowdaa h1 element oo ay ku dhex jiraan qoraalka cat halka marka aad maxaa qoraysaa tusaale maxaa qoraysaa waa mana waa lagu hagayaa ma garata waa macallinkii iyo qoraal ahaan wax kuu sheegay wuxuu ku leeyahay saa samee h1 ku salaadii maxaa sameynaysaa tusaale saana dhaysaa h1 baa qoraysaa opening tag kadibna h1 closing tag baa qoraysaa kadib markaas aad qodid maxaa ku xiga qoraalkaana qoraysaa maxaa ku qoran cat photo app okay saa markaa u qodid maxaa leedahay check my code test baa lagu marinayaa oh congratulations baa leeyahay your code passes submit your code and continue okay submit baa dhaysaa maxaa dhaysaa haddana continue baa dhaysaa ka soco kadib markaasaa tiraadid waa ka soconaysaa marka halkaan baad taabanaysaa submit ama control enter okay waa ka soconaysaa kana waa la mid markaad soconaan kale kan waa la mid fiiri kan waa la mid muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay oo kale wuxuu ku barayaa headers ku barayaa wuxuu ku leeyahay waxaa jira header 1 header 2 header 3 4 5 6 wuxuu ku leeyahay haddana waxaa laga adeegsadaa header 1 iyo 2 oo waxaa loo adeegsadaa ku leeyahay mainka loo adeegsadaa okay header 2 waxaa loo adeegsadaa ciwaanka muhiimka ku xiga okay marka saa u baratid muxuu ku leeyahay tirtir waxaa qodhaa ku leeyahay add h2 oo kale fiiri wuxuu ku leeyahay h2 qudar h2 qudar buu ku leeyahay sax okay waxaan tirtiray صح wuxuu ku leeyahay h2 ku dar okay h2 opening tag baa qoraysaa kadibna closing tag waxaa qoraysaa cat photos check the code baa dhaysaa should have your journal should have an opening tag h1 yiri okay fiirina waxa ka khaldan soo leeyahay laakiin way yar la noocaana ku helaysa marka noocaana markay koosho qaab noocay oo xalinaysa su'aal weey soma qaabka xalinaysa waxa weerta
back baa dhahaysaa marka hore. Okay, back ba dhibta jidhaa waxay tahay kanaa kasoo tegay marka dhibta jidhaa waxay tahay tanaa kasoo tegay. Okay, tan aan dhaho h1 aan qoro horta cut photo app idan asa check your code. Yes, soo jeedaan cilada markay ku qabsato hadda fujeeda cilada markay ku qabsato isdhibaateyn maysid, wareeri maysid, maxaa samaynaysaa dib baa u laabanaysaa garad waxaa ogaanaysaa horta xanuunka iga jira. Hadda marka muxuu yiri h1 ka hoostiisa fiir, h1 ka hoostiisa maxaa ku dadhaa h2 oo element oo wata text kan. Okay, h2 waa qoraysaa marka h2 waxay tahay hore usoo barato Soomaa tusaale ka siiyay Soomaa h2 qor kadib maxaa qoraal siinaysaa cut photos. Okay, check your code baraysaa. Okay, muxuu yiri with this text cut photos. Okay, halkaan fiir muxuu yiri iyo h1 isaga ku saxay ogow weligaa ha degdegin fiir waan akhrisaa cilad muxuu yiri maxaa rabaa cut photo app baa laga rabaa. Okay, cut photo app aan siiyo bili aadan baan nahay marka waa inaad tartiibtaada. Okay, soo jeedaan kadib tusaale labada exercise hadda marka waxaa fiirinaysaa ku laabanaysaa curriculum-ka ku laabanaysaa meeshaan ku dhufanaysaa kili ku sii. Okay, maxaa ku samaysmay maxaa ka shaqeysay 1 iyo 2 ani marka 3 waa ka shaqeeyay 4 waa ka shaqeeyay marka adi marka hadba ka shaqeysid booka marka suu u wado 42 markuu gaarsiiyo waxaa dhistay sawirkii uu intusay waa aragteen Soomaa hadda fiirsaa marka u dhufatay fiir maxaa dhistay kanaa dhistay marka 42 marka gaadhay kanaa dhistay kan marka dhistid bal ka waran believe me cilado waa ku gelayaan laakiin ka waran inta waxa faa'iideysa ka waran wax ku baranaysaa wax la yiraahdo work by doing adoo sameynaya baranaysaa waa habka ugu fiican way habkan waxa way lacag lagu bixiyaa wallahi lacagta ugu yar lagu bixiyaa waa $500 kun dollar baa lagu bixiyaa rag badan oo aqaano kun dollar bay ku bixiyaan gartay ka waran aakhirkii 42 markaa sameysid halkan fiiri 42 cashar fiir 42 maalinka dhameysid projectii waa dhameys HTML waa dhameys. Okay, marka dhameysid waa kan waxa la yiraahdaa waa workshop baa la macalinka ku tusaya marka ka soo faatid lab baa jira marka lab waxa lab la yiraahdaa jira. Okay, labka tagaysa labka wax kale ma waa exercise weyn maxaa lagu leeyahay tusaale halkan maxaa ku dhufanaysaa waxaa dhistaa wax la mid ah this example. Okay, kanoo kale dhisaysaa marka kanoo kale baa dhisaysaa waa labkii wey marka dhistid muxuu kale isaga ku hagaya kan adeegso adiga marka waxaan dhan waa soo baratay wax kugu cusub maaha wax soo aragtay wixii aad soo aragtay waa qiyaas qaadanaysa li adeegso ku leeyahay hadhow marka test gareynaysid kanuu kaa fiirinaya kadib markaa dhameysid exercise-ka waa dhameys waa exercise-kii wixii aad soo baratay halkaana code ku qoraysaa code-ka meel cid ku qormaysid halkaana code ku qoraysaa example-kan waa ka mar walba example-ka fiirinaysaa muxuu u baahan yahay kan u baahan yahay ku qor wixii kugu adkaadana waxa sameynaysaa wixii kugu adkaadana waxa sameynaysaa Google baa sameynaysaa Google fiiri kana kugu adkaaday tusaale hadda wax kugu adkaan kara bilaadan baa waxa kugu adkaan kara kana kugu adkaan kara kan maxaa laga waraa copy soo dheh saa ugu dhufo meeshaan tag. Okay, meeshaas aad tagaysaa kadib paste ku dheh enter. Okay, I'm confused halkan fiir wax ugu horeeya fiirinaysaa marka fiir AI buu leeyahay uu ku saxay ama ku leeyahay waxaana laga wadaa uu ku leeyahay code kan UTF-8 weeye header korkiisa la sheega lagu qoraa macnaha uu jeeda okay waa fahmaysaa marka adiga marka wixii kugu adkaada you can google. Okay, marka kan waa HTML-kii weeye HTML-ka marka tusaale waa sidaas weeye marka section bay leedahay section kan oo kale intaan wataa basics intaan wataa
section kana jira intii kala wata lectureski workshopki labki review waa jira oo ah kutusaya quiz ma wataan practice ma wataan garta xanuun weeye marka barnaamijku waka CSS ki wata oo the professional CSS ku waxyaalaha xanuunka oo kamid yahay walaal dadka dhanbaan kulli waa wata practice ki lectures ki quiz ki waa wata fiiri waa wata lababki waa wata javascript iyo ku jira xanuun laftigeeda ah laakiin halkan daa ka barto functions ki variables waa wata garta wax walba react waxay wataan oo kale fiiri react wataan local storage ki fiiri local storage classes APIs ki wata oo kan ah libraries ka xitaa waa wataan fiiri react wata garata react kaliya state bay wataa kadib workshop bay leedahay kadib lab bay leedahay garanaysa adoo fiiri python oo foundation camal ay u qaadanaysid foundation baa u qaadanaysaa meelaha garata oo inaha wax foundation un buu soo dareen laakiin hadhow database ki waa ku xiga waxaan ku intaan hadaa soo qaadatid inta ugu muhiimsan fiiri waxa jira khulaasa markii diinta la baranayo naxwaha markii la baranayo qabtaala qofka markaad qawaacidka naxwaha la xifdiyaa soma qawaacidka marka xifdid ba kitaabta weyn alfiyi iyo qadriinidihi iyo kawaakibki marka lagu geeyay marka saas kale way halkan waxa la sameeyaa inta ugu muhiimsan baa lagu siinaya inta ugu muhiimsan inta hadaa soo qaadatid oo practice kaaga badisid aad YouTube iyo tutorial waa laga yaabaa inaad daabatid oo kale further information inaad ka heshid xog badan laakiin inta hadaa qaatid practice kaaga badisid waxa u maleynaa 8 bilood hadaad dadaal badan bixinaysid iyo 8 bilood inta ku dhameyn kartaa marka dhameysid kaliya waxa u baahan tahay project inaad dhistid wax kale uma baahan inaad raadisid mataqaana shaqooyin dad aad la shaqeysido internships ma garata marka adi qof dadaalaya hadaa tahay legend hadaa tahay ma weynaysid internship hadaa idin sheegaya qof dadaalaya waxa ma waayo qof dadaalaya oo jabhado loo jeedo waxa ma waayo ma garata marka horta waka soo dhawaada